War ka soo baxay booliiska waddanka Kenya ayaa lagu sheegay in xubno ka tirsan Al-shabaab ay weerareen xero ku taalla deegaanka Fafi ee magaalada Garissa, waxaana ku dhimatay 6 askari oo ka tirsan ciidamada kaydka ee booliiska sida lagu xaqiijiyay bayaanka. Booliiska Kenya ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan meydadka 2 ka mid ah raggii ka tirsanaa Al-shabaab ee weerarkaasi fuliyay, waxaana baaris ku haya waaxda dambiyada booliiska si ay u ogaadaan deegaanka ay ka soo jeedaan. Wargeyska The Star ayaa sheegay in xubnaha ka tirsan Al-shabaab ay baxsadeen qaarkood iyaga oo dhaawaca, waxayna afduubteen dad ku sugnaa deegaanka Fafi ee ismaamulka Garissa oo weerarkaasi uu ka dhacay. Afhayeenka adeegga booliiska Kenya, Michael Muchere, ayaa sheegay in ay xoojinayaan dadaallada lagu sugayo amniga isla markaana looga hortagayo weerarada cusub oo ay Al-shabaab ka fulin karaan qaybo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari Kenya iyo guud ahaan magaalooyinka Kenya, ayaa lagu yiri. Waxa uu sidoo kale xusay in ciidamo dheeraad ah ay geynayaan deegaanka Fafi.